بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه waxaan filayaa caawada dadka halka jooga waa wada arday ana ardayda sheekh dirir waa ka mid ahaa oo kutubta bar waa ka marsaday waa ka daaweynay markii daan noqoto laakiin waa ka mid ahay ardaydii wax ka marsatay quraanka iyo tafsiirkiisii runtii waa cilmi aad u weyn baa xambaarteen dee nebi maxamed baa ilaahay wuxuu soo diray waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun ilaahay wuxuu leeyahay waxaanu kuu soo dirayba inaad dadka u bayaamiso wixii aanu kugu soo dejinnay waa shaqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaa shaqada sheekh diriir inoo hayay oo ah inuu bayaamiyo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii dadka inuu u bayaamiyo innagana waxayna saaraan lacallahum yatafakkaruunta inaynu dhuuxno oo fakarno oo qur'aanka kan fahamno oo runtii dadka halku maanta ka joogo ma aha ilaahay kitaabkiisu kitaabka qur'aani waa akbar mawsuuca cilmiya dunida kor saaran waa mawsuuco aqoon wax ka warrama kitaabkii u ballaadhnaa weeyaan waayo waxaa soo dejiyay aladii yaclamu sira fi الsamaawaati wاlard ilaaha sirta cirka iyo dhulkaba og hadalkiisii weeyaan waana waxa ugu ballaadhan ama ugu weyn ee loogu talagalay qofka bini aadamkaa wixii tegey iyo waxa soo socda aakhiriya adduunba iyo sida labadaba loogu liibaano in rabu الsamaawaati waalardi uu bini aadamka u sheego waxayd qof kasta oo aqoon sheeganaya inuu asalka kitaabkan ka intilaaqa ama ka bilaabo aqoontaad doonto baro waxaa leenahay usuusheeda halkan waad ka helaysaa waxa markaa caawa idin saarani waxa weeyaan kitaabu rabbulcaalamiin baa laydin dhameeyey maxay idin fali cilmiga aakhiriya adduunba kuu ku jiray ayaa laydiin fasiray intii laga gaadhayay inta kale idinku xilku idin saaray inaad sii ballaadhsataan ama aqoontiisa kitaabka aad sii gashaan dadkana inay gaadhsiisaan oo inta idinka dambaysa inaan sheekh diriiruun soo fadhinine inaa idinku xambaarteen risaaladiiyo dadka inta kale aad gaadhsiisaan sheekhana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ka aqbalo innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin in ilaahay ka aqbalo oo waxaa soo dadaala wuxuu u bixinayaa ammaanteenna maaha inuu helo wuxuu u bixinayaa inuu ilaahay hortiisa ku badbaado oo uu noqdo aakhiro wixii uu shafeeco qaadayey ee uu ilaahay subxaanahu wa tacaala la hortegayey isagana waxaynu leenahay ilaahay ha ka aqbalo idinkana waxaan idin leeyahay qaada kitaabkaasioo ummadda inta kale gaadhsiiya inta maamulka ka fadhidana waxaan leeyahay intiinii kalena gaadhsiiyo war liibaanteennu waa kan hadday dhaqaalo iyo hadday siyaasad tahay iyo hadday arrimo bulsheed tahay iyo waxa bini aadamku uu ka warramo o dhan wuxuu doonaba ha ka ahaadee aadanu wuxuu yidhahdaa khabiir hebel baa yimi khubaraanu weydiinay war rabu samaawaat baynu weydiinaynaa isagaana ka jawaabay haddii aynu rabbigeen jawaabo cad ina siiyo ah sidii loogu liibaanayey maanta idinkaa xilka fadhiye idinna ku dadaala sidii aakhiro u badbaadi lahaydeen si aakhiro u badbaadi lahaydeen waa inaad raacdaan waxaa rabbi inoo soo dejiyey subxaanahu wa tacaala inana ciddii inugu xukumaysa inaynu ku taageero oo u fudaydina hawsha intaynu u fudaydin karayno ayaa inagana waajibka markaa ina saaranay uu yahay anigu kelmad ballaadhan kuma soo talagelin caawe waxaan ku soo talagalay inaan sheekh dirir u duceeyo waa macallimiintayda afka carbeed ii dhigtuu ka mid yahay oo kutub naxwaa baan ka marsaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم